له ساكي عن سوغاري وعن بدوني لوريقني دارو حوق له وأنا السوغاري حفيز رئيس الوزراء بلد الصومالية مدن حسن علي خيري داوا اسمه سوغيبا حفيز كسوب حضي أيام مرتبط داوا ديبان بدوني لوريقني ما شاء الله waxaan rabnaa inaan ugu mahadcelino marka ugu horeyso dawladda dhigaysatay qayladaankayni markii aan magaalada ku aragnay dhibaato xoog leh culays badan xanuun badan oo aan qayladaan sameynay oo la isugu yimiday dhaqaatiirtii iyo caafimaadkii hay'adii caafimaadka dhan ay isugu yimideen qayladaankii aan sameynay dawladda kasoo jawaabtay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa intaan inka badan inaan sugi doono mar labaad iyo saddexaadba waxaan isleenahay marka waa meel weyn magaalo weyn oo haddana dhibaatadeeda aan isleenahay aad bay u ballaaran tahay kuma filna daawada la soo gaarsiiyey iyo agabka soo gaari wasaaradda caafimaadka dowladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha si laga nugul ugu soo jawaabay baahidayni ama qayladaankayni waa ugu mahadcelinaynaa waxaan idin leenahay sida aad u garab taagan tihiin muwaadiniin meel kastoo ay joogto waad ku mahadsan tihiin mar labaad qaylan haddana maaragtay ku sii kabaynaa waxaan isleenahay nooguma filna agabka la soo dhiibay idaabadna soo gaartay nooguma filnee isbitaal fara badan baa ku yaal halkan dad badan baa xanuunsan insha Allah dawladda inay saas noogu ekaanin noogu dhaafin nooguna jeesanin ayaan codsanaynaa oo mar kastaba ay xaggayn u soo jeedaan oo ay maaragtay maxaa la yiraahdaa na dhageystaan na fiiriyaan isha noogu hayaan insha Allah iyo dhammaan dhaqaatiirta waxaan faraynaa ankaynaa daawadaasa in dadka loo askuro loo xanaaneeyo agabka loo xanaaneeyo dadku la dhexgalo baaritaan xoog leh lagu sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan dadku sambalkooda in la dhiibo si loo baaro loo hubiyo caafimaadkooda iyo xaaladahooda yaan laga fadhiisanin tiimamkii aan hore u sameynay ay wacyigelinta waday waxaan weynkan aan leenahay wacyigelintii hala laba jibaaro hore ha u sii socoto waxaan dareemaynaa calaamadihii cudurka oo weli sii zaa'idaayo kor u sii socdaan marka insha Allah mar haddii agabkayna isna soo gaari waxaan isleenahay qof kasta oo xanuunsan gurigiisa ayaa loogu tegayaa bulshadana dhammaanteeda waxaan weydiisanaynaa inay ogolaadaan in la baaro caafimaadkooda la hubiyo sidoo kale waxaan ku soo noqonayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowladda koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda caafimaadka dhammaan mar labaad waxay idinkugu baaqayaa mar haddii aan helnay daawadii iyo agabkii waxaa naga dhiman meeshii aan ugu talagalnay karantiilkii dadka bukaanka qaba markii la baaro la geey lahaa waxaan codsanaynaa in nolol dayactiro nolol qalabeeyo sariirihii iyo wixii loo baahnaayo qofka bukaankaas u baahnaa in maaragtay loo dhammaystiro mar haddaan helnay agabkii helnay dadkii in la baaro ay fududaanayso markii la baaro qofka haddii asigoo xanuunkiisii aan hubinay ma jiifi karo gurigiisa mana oolaa karo qofkaas in la soo qaado meel gaar lagu xanaanay ayaa u baahan yahay lagu tarankiido marka bartii aan u baahannahay in la dayactiro la qurxiyo sariirihii iyo agabkii kale wixii kale u baahnaan lahaayeen inay meeshaasi ka helaan aad iyo aad u mahadsantihiin inaad maaragtay codsiga in haddana dhegeysan doontaan ka jawaabi doontiin waa idinka rajaynaynaa khaasatan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waajibka ku saaran inaad gudatid sida aad haddan u gudatay oo aad u soo daadahday ilaa ay qayladhaankaada aad gaarsiisay xafiiska ra'iisul wasaaraha waan kaaga mahadcelinaynaa mudan wasiir insha Allah waxaan ku leenahay ku dhiirigelinaynaa sida bulshadu garab taagan tahay waan ku amaanaynaa hore u soco
هاي لدانك النصيوة باهيدو مكافيسو انتان لكن بلوة هاي سنمان وكم هاسنتهاي إن شاء الله تعالى نغاتلكو بدي كلمتين كدريسو